sharcigan shirkadaha ujeedada sharciga ugu muhiimsan waxa waa wuxuu nidaaminayaa qaabka howlaha shirkadaha ganacsiga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu nidaamiyo diiwaangelinta shirkadaha iyo howlahooda maamul ujeedada sharciga oo qorayo waa labadaas ugu muhiimsan sharcigan wax kasta masuubinaya kaliya waxa loogu taray labadaas base-ka ah sidoo kale magaca sharcigan waxa la dhahaa sharciga waxa lagu magacaabaa sharciga shirkadaha ganacsiga dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya fasiraadiisana waxa loo fasirinayaa si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka iyo danta guud ee mabaadi'da shuruucda caalamiga ujeedooyinka shirkad ganacsi laga leeyahay waxay noqon kartaa ama lagu aasaasi karaa marka shakhsi ama shakhsiyaad isku darsadaan hanti si waafaqsan sharciga oo lagu magacaabo saamiley kuna howlan ganacsi faa'iido doon ah si waafaqsan shuruucda dalka waxna u dhimaynin asluubta iyo anshaxa suuban ee bulshada ay leedahay qofka wuxuu ka ganacsanaya waa inaysan asluubta iyo anshaxa wanaagsan ay ummadda leedahay san taabanaynin asagana markaas uu yahay faa'iido doon shirkad shakhsiyadda qaanuuniga ah ee shirkadaha shirkad kasta waxay yeelanaysaa shakhsiyad qaanuuni ah goorta laga diiwaan geliyo maxkamadda gobolka xarunteeda dhexe ay ku taalo shirkadda marka la diiwaan gelinayo waxay yeelanaysaa dhammaan xuquuqaha waajibaadka iyo tasarrufaadka sharciga siinayo ama saarayo sida yeelasho hanti ka qaybgal dacwo iyo gelid heshiisyo intaba waa shirkadda qaanuuniga ah oo yeelanayo noocyada shirkadda marka noocyadu aad bay u tiro badan yihiin laakiin waxaan ku soo koobnay labadan qodob sidaadana sharciga markii la fadhiisanayo boqolkiiba boqol sharci dhammaystiran oo aan ka noqosho lahayn oo aan waxba ka qaldanayn ma dhici karto waddan kastana waa ogtihiin Kenya diriskeena ah sharcigan markii la suubiyay ilaa hadda 5 ilaa 7 mar baa isbedel lagu suubiyay oo wax lagu kordhiyay annagana marka sharcigan kii final kama noqon doono laakiin waa sharci aasaaskiisa casri yahay nooca adduunyada casriga laga isticmaalo tahay waxyaabaha maxaan ku dhahaa soo kordho oo aanan suuragal ahayn oo ku jirin mar alla markii soo kordho amendments lagu suubin karaa ama bedelaad lagu kordhinayo laakiin shirkadaha noocyadooda waxaan ku soo koobnay shirkad gaar ah iyo shirkad dadweyne shirkad sahlan oo shirkada gaar ah kamid ah waa shirkad uu leeyahay shakhsi ama qoys ama saaxiibo kooban shirkad mas'uuliyadeeda xadidan tahay oo limited tahay waa shirkad deynteeda u soo gudbaynin saamileyda shirkad aan mas'uuliyadeeda xadidneen waa shirkadaha ay dhahan luqadda qalaad unlimited waa shirkad deynteedu u soo gudbaysa saamileyda oo tusaale ahaan adigoo shirkadda wax ku leh haddii hantida ay lunto hantida kaloo leedaha loo raacan karaa laakiin markay xadidan tahay looma soo raacanayo shirkad dadweyne waa shirkad saamiley waa shirkad mas'uuliyadeeda u qaybsan yahay saamiyo leh madax banaani hantiyeed xubnaha shirkaduna ay ka badan yihiin konton waa shirkadaha caalamiga ama hadda tusaalahan Soomaaliya qaarkood ay jiraan oo saamiyo lagu leeyahay waxaan rabaa marka qodobada way tiro badan yihiin buugaagtana waad haysataan waxaan idin la qaybiyay isbuuc ka hor ama isbuucii hore waxaan rajaynayaa qof kasta inuu soo akhriyay marka waxaan rabnaa intaas hor u dhici koobnaa ku saabsanaa maxaan ku dhahaa sharcigan shirkadaha waxaan rabaa hal qodob oo aan horaantii ku darin inaan hadda ku daro ah sharcigan waxaa ka soo shaqeeyay guddiga ganacsi ee dhaqaalaha ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga oo xubnaha halkan maanta baarlamaanka jooga ay qaybtood ka joogaan waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo xubnihii dhammaan ka soo shaqeeyay sidoo kale wasaaradii inoo soo gudbisay wasaaradda ganacsiga ee wasiirka iyo wasiir dawladda halkan ay joogaan ayagana aadan kaga mahad celinayaa oo wada shaqeyn fiican ayna kala kulanay waa mahadsantiin wixii kale su'aalo ah anaga iyo xubnaha guddiga gudoomiye ku-xigeenka daahirna wada joognaa waa idin soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi